مقدشو magaalada muqdisho waa caasimada Soomaaliya waa magaalada ay ku yaalaan xarumaha ugu waaweyn ee looga arrimiyo dalka waa xarunta ay degan yihiin mas'uuliyiinta ugu sarsareysa ee dawladda sidoo kalena waa magaalada ay joogaan ciidamada dalka noocyadooda kala duwan muqdisho waxaa ku yaala shirkadaha iyo suuqyada ugu waaweyn ee ganacsiga dalka waxaana gudaha muqdisho ka shaqeeya ajaanibta ugu badan ee ka howlgasha gudaha dalka Soomaaliya caasimada waxaa sidoo kale ku yaala goobaha waxbarasho ee dalka ugu waaweyn sida jaamacadaha iyo iskuulada waxaa degan shacab badan oo isugu jira qaxooti danyar ganacsato iyo dad kale inkasta oo muqdisho ay martigelisay guud ahaanba waxyaabihii aan soo sheegnay haddana ma helin adeegyo amni oo hufan iyadoo ay joogaan noocyada kala duwan ee ciidamada ammaanka Soomaaliya waxaa ka dhaca qaraxyo mahadho iyo urkutaalooyin ku reeba shacabka weeraro dilal qorsheysan iyo dhac loo geysto shacabka taasoo mararka qaar sababta in uu hakad galo isku socodka dadka qaybo kamid ah xaafadaha degmooyinka in dawladdu awoodeeda ku cabiso shacabka intay u adeegi lahayd jidadkan la xiraayo oo maalmaha oo dhan xiran waxa weeye waa qayb ka mid ah cabrin haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaalka geli jid la xiraayo ma jiraayo markaan shabaab ka adkaano markaasaan baabuurta ku raaxaysanayna laakiin isma keeni kartid adoo dagaal ku jira inay jidadku wadda ka xiran yihiin dadka u baahnay muwaadin kasta ee ka maqan magaalada muqdisho waxa uu ku hanweyn yahay in uu maalin uun dib ugu soo laabto caasimada oo uu eheladiisa iyo asxaabtiisaba kula kulmo gudaha caasimada balse waxaa cabsi geliya maqalka iyo aragga waxyaabaha ka dhacaya magaalada isagoona u cabsada dadka u jooga haddii ay yihiin ehel ama asxaab waa dulman tahay magaaladu cidna uma maqna waxyaabaha ka dhacayana waxba la iskama weydiiyo sidoo kale dhibaatooyinka aan kala joogsiga lahayn ee uu gudaheeda kula kulmayo shacabka dhiban oo misna dulqaadka badan waxba la iskama weydiiyo goorma ayaan helaynaa nabad deganaan iyo waayo wacan goorma ayaan helaynaa waxyaabaha ay haystaan shucuubta caalamka ee annaga nala midka ah ee ku naaloonaya quruxda iyo wanaagga dawladnimada goorma ayayse dawladeenu fahmaysaa xuquuqda waxyaabaha naga maqan iyo sidoo kale rajooyinka aan ka leenahay inaan la sinaano dadka ku nool dunidan inteeda kale ee haysta farxadda iyo hanaanka dawladnimada waa waxyaabaha ay qof kasta oo muqdisho ku nool ku cataabayso isla markaana maskaxdeeda ka guuxaya haba kala darnaadaanay qaraxyada dilalka iyo weerarada ka dhaca muqdisho dhibta ugu badan waxay ka soo gaartaa shacabka qaybihiisa kala duwan mas'uul kasta ee ka hadlana waa cambaareeya uun kaliya mana jirto tallaabo horay loo qaado si loo badbaadiyo shacabka inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun allah u naxariisto dadkaas ku dhintay halkaas waxay ahaayeen dad aan waxba galabsan shacab rayid ah intooda badan waxaa laayay dadkaas dhagariqabayaasha ku soo duulay dalkeenna Soomaaliya ma aha markii ugu horreeyay oo ay qaraxa noocaas oo kale ah ay la beegsadeen mar kasta oo ay arkaan meel zaxmo ah ama bulshadu isugu badan tahay waxa ay ka caado dhigteen inay sidaas oo kale ay u laayaan maalmahan dambe xaalku waa allow sahal oo dalku waxa uu ku jiraa xilli xasaasi ah oo ay doorashooyin soo dhow yihiin iyadoona qayladhaan laga muujinayo habka ay u dhacayso iyo hadiiba ay xilligeedii ku dhacayso tiyo ay jirto ayaa amnigii caasimadu aad hoos ugu sii dhacay oo waxaa maalmo gudahood ka dhacay qaraxyo iyo dilal siyaabo kala duwan loogu geystay mas'uuliyiin asgar iyo shacab mana muuqato tallaabo cad oo la qaaday si loo xoojiyo amniga hadallada ugu badan ee madaxda ayaana noqday doorashadii ayaa la boobayaa waxa u baahanahay doorasho wadar ogol ah oo waqtigeeda ku dhacda iyadoona jawaabaha ka soo horjeeda ay yihiin waxaan rajaynaynaa in doorashadu waqtigeeda ku dhacdo mana jiro boob doorasho siyaasiyiinta qaar ayaana sheegay in dawladda Soomaaliya ay gabi ahaanba ku fashilantay amniga Muqdisho bedelkeedana ay madaxdu ku mashquuleen sidii ay mar kale kuraasta ugu sareysa dalka dib ugu soo laaban lahaayeen dhibaatooyinkaas baa maadkana keenaya fooljigaanti iyo mataqaana arrimihii amniga inuu xoogaa maaragtay u dabca ma garat marka dawladdu waxa weeye mashquulka badan iyo mataqaana arrimihii doorashooyinkii waxaas bay maaragtay ku mashquulsay waxa weeye dad badanoo
oo ciidamada waxa soo baxay mataqaanaa xaluushii shaqaysiyaalaho niman mucaarad sheeganaya ee magaalada kusoo daayeen dhibaatooyinkaas baa jiro oo maaragtay xalna u heli lahayd dowladda haddii maaragtay la yidhaahdo waxaasi waa lasoo gabagabaynayaane dhinac kale haddana dowladda looga dhegan yaho jawaabta ay rabto ma qaadi karto shacab baa laynaysaa iyo balaayi dhibaatooyin badan baa iska jiro haddaba muranka iyo isqabqabsiga madaxda dan ma ugu jirtaa shacabka maxaase loogu tartamayaa oo loogu dhaaranayaa xil aan qofkiisa mooye shacabka aan loogu adeegin ugu dambeyn warbixintan waxaan ku soo afmeerayaa muqdisho iyo shacabkeeda mawlow umaciin madaxdana milicsiga dadkooda maankooda ku beer hormar xawli sacariya xilli siday ahaydi xasilooniya nabad rabo xama ku soo celi xaakimadiga weye